Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran kanalka samawada ee YouTube soo dhawaada. Intaanan guda gelin muuqaalkani waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid lana wadaagto asxaabtaada. Muuqaalkani nin caqli iyo xigmad badnaa ayaa wuxuu damcay inuu noqdo siyaasi, wuxuuna u yimiday boqorka meesha uu talinayay, wuxuuna ku dhahay boqorow waxaan doonayaa inaan noqdo siyaasi ka tirsan boqortooyadan aad boqor ka tahay. Kii boqorka ahaa ayaa wuxuu dhahay taasi agteeda way ka fududahay, balse waxaan kugu xirayaa shuruud. Haddii aad ka soo baxayd shuruudaasna waxaad noqon doontaa siyaasi ka tirsan boqortooyada. Ninkiina wuxuu dhahay soo daa shuruudda. Boqorkii ayaa wuxuu dhahay fariistayda waa inaad ii xanaanaysaa, maalinkii 2 mar ayaad wax siinaysaa, habeenkiina 1 mar ayaad wax siinaysaa. Wuuna aqbalay ninkii, muddo ayuuna xanaanaynayay faraska. Muddo kadibna ninkii wuxuu bilaabay inuu baxsado. Boqorkiina ciidamadiisii wuxuu ka amray inay soo qabtaan, waana la soo qabtay. Boqorkii ayaa ninkii wuxuu weydiiyey sababta uu u baxsaday. Ninkii ayaa yiri boqorow faraskani ma ahan faras sax ah. Boqorkii ayaa xanaaqay, wuxuuna amray ciidamadiisii inay xiraan ninkan. Muddo kadibna boqorkii wuxuu go'aansaday inuu isugu yeero shaqaalihiisa, wuxuuna weydiiyey shaqaalihiisa xaqiiqada faraska. Shaqaalihiina waxay ku dhaheen boqorow faraskani marka uu dhashay waxaa baktisay hooyadii dhashay, asna si uu u baktiin uu u badbaado waxaan go'aansanay inaan u nuujino sac irmaan ah, sidaa awgeed waxaa laga yaabaa inuu faras ku yeesho dabeecadaha lo'da. Boqorkiina wuxuu dhahay ha liigu yeero ninkii, waana loogu wacay. Boqorkii ayaa ninka wuxuu weydiiyey sida uu ku gartay in faraskan uusan ahayn faras sax. Ninkii ayaa yiri boqorow waxaan ku gartay had iyo jeerba fardaha haddii cunno loo keeno madaxooda kor ayay u taagaan, balse dameeraha iyo lo'da madaxooda ayay foorariyaan. Boqorkii ayaa dhahay waxaad tahay nin xigmad iyo caqli badan, shaqadanna waan kaa bedelayaa, xaaskayga ayaan waardiye kaaga dhigayaa. Ninkiina wuu aqbalay. Boqorkiina wuxuu dhahay subaxii waxaan ku siinayaa xabad digaagad, habeenkiina waxaa ku siinayaa xabad digaagad. Siduu ninkii ugu adeegaya xaaska boqorka ayuu mar kale baxsaday. Boqorkii ayaana ciidamadiisii wuxuu ku amray inay soo qabtaan. Raadis badan un kadib boqorka ayaana loo boqorkii ayaa ninka wuxuu weydiiyey waxa ku kalifay inuu baxsado. Ninkii ayaa yiri boqorow waan kuu sheegayaa ii ballanqaad inaadan i dilayn. Boqorkii ayaa yiri waa igu ballan. Ninkii ayaa dhahay xaaskaagu ma aha boqorad sax ah. Boqorkii ayaa xanaaqay, wuxuuna dhahay hala xiro ninkan. Waagii horena ninka boqorka wuxuu guursan jiray boqorad. Kadibna boqorkii wuxuu u tegay dadkii u soo dhisay gabadhan, wuxuuna ku dhahay hala ii sheego xaqiiqada gabadhan. Waxaana lagu dhahay gabadhani ma ahan ina boqortooyo. Markii aan soo diyaarin boqoradii aan ku guurin rabnay ayaa tii alle u timid. Si uusan guurkaaga u baaqanna waxaan go'aansanay inaan kuu dhiso gabadh jaariyad ahayd. Boqorkiina wuu yaabay, wuxuuna dhahay ciidankiisii ha laygu yeero. Markii loogu yeerayna wuxuu ku dhahay warniyow sideed ku ogaatay in boqoradda aysan ahayn boqorad rasmi ah? Waxaan ku ogaaday inaysan ahayn boqorad rasmi ah ka dhasha boqortooyooyinka kuwa kibir badan, ragga markay la hadlayaanna waa kuwa la tirsado, balse tani madaxeeda ayay hoos aadin jirtay. Sidaas ayaana ku ogaaday inaysan ahayn boqorad rasmi ah. Boqorkii ayaa ninkii wuxuu ku dhahay waad aqli badan tahay, shaqadanina waan kaa bedelayaa, aniga ayaa waxaa ii noqonaysaa waardiye. Habeenkiina waxaan ku siinayaa 1 neef oo ida ah, subaxiina waxaan ku siinayaa 1 neef oo ida ah. Ninkii wuu aqbalay. Siduu muddo dheer ugu ahaa waardiye iyo adeegay ayuu maalintii baxsaday. Boqorkii ayaana ogaaday inuu baxsaday, wuxuuna ciidankiisii ku amray inay soo qabtaan. Raadis badan un kadibna waa la soo qabtay. Boqorkii ayaa ninka wuxuu ku dhahay sheeg waxa kugu kalifay inaad baxsato. Ayaa dhahay boqorow waan kuu sheegayaa inaadan i dilayn. Boqorkii ayaa wuxuu ku dhahay waa igu ballan. Ninkii ayaa wuxuu dhahay boqorow adiga ma tihid boqorkii rasmiga ahaa ee dhaxalka u lahaa saldanadan. Boqorkii ayaa xanaaqay, wuxuuna dhahay xiro ninkan. Muddo markii uu xirnaa ninkii ayaa boqorka wuxuu go'aansaday inuu hooyadii u tago, weydiiyana arrinka uu ninkan sheegayo. Hooyadii ayuuna weydiiyey. Boqorka hooyadii ayaana waxay ku tiri wiilkaygiiyow ninkii hore ee boqortooyadan ka talin jiray markuu dhintay aniga waxaan lahaa uur, dadka oo idilna waxay iga filayeen inaan dhali doono wiil, balse waxaan dhalay canug meed ah. Si aysan boqortooyada gacanteena uga bixinna waxaan go'aansaday in adeega ka ahaa qasriga uu wiil u dhashay inaan ka soo qaato. Boqorkii wuu yaabay, wuxuuna ciidamadiisii ku amray in loogu yeero ninkii ayaana loo keenay. Boqorkii ayaa ninka wuxuu ku dhahay sidee ku ogaatay inaan aniga boqor ahayn? Ninkii ayaa yiri waxaan ku gartay inaadan boqor ahayn marka ay boqorada wax dhiibayaan ay dhiibaan dahab iyo luul iyo waxyaabo kale oo qaali ah, balse adiga i siisay wan iyo dooro iyo lacag. Sidaa ayaana ku gartay
ogaaday inaadan ahayn boqor rasmi ah. Ugu dambeynna ninkii waxaa laga dhigay wasiir ilaa uu markii dambe uu noqday boqor. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga.